waxay ku hadlayaan luqadda Carabiga waxayna soo dariishanayaan qaar kamid ah ayadaha kitaabka Quraanka Kariimka sida doonayso dowladda Israa'iil inay ku kasbato shucuubta Carbeed baraha bulshada iyo waliba warbaahinta. waxaa laga maarmaan in laga tindikan magaciisu Afiqaay Adray wuxuu ku hadlaa afka ciidamada dowladda Israa'iil maaha askari caadi ah laakiin waa wariye xirfadlaha asalkiisuna waa Suuriya waxaana ku xeel dheeryahay inuu hal abuuro bomboonita dowladda Israa'iil dacayadaheedana faafiyo. ninkan waxaa hagiisa dambe taagan hay'adda sirdoonka ciidamada dowladda Israa'iil lagu magacaabo Ammaan barihiisa uu ku leeyahay Facebook iyo Twitter-kana waxay kamid yihiin tobanaanka barood ee rasmiga ah iyo boqolaalka barood ee aan rasmiga ahayn kuwaas oo ku hoggaansan siyaasadda loo yaqaano diblomaasiyadda digitalka ku shaqeysa taasoo qabsatay isballaarinteeda adduunka sanadkii 2015 waxayna doonayaan Adray iyo saaxiibadiiba xaqiijinta hal hadafkaas oo caadi ahaan xiriirka Carabta iyo Israa'iil kaasoo macnihiisu yahay in shacabka Carbeed ay ogolaadaan dowlad madax bannaan oo Israa'iil leedahay. taasina waa siyaasadda ku dhisan isdhexgalka iyo isu keenida taasoo hadhow isbedel yimaada iyo waliba qancinta shacabka si tartiib taasoo iyadoo ay la gaartay nafteeda iyo si warbaahinta loo aqbali karo. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum ila hadillah. waxyaalaha u suurtagelinaya dacaayadahooda iyo ereyada isticmaalayaan ee xiisaha leh oo ay sugayaan waa ciidankiinu waa mid idin dilaya annaga ciidankayguna waa midna difaacaya. waxayna ka faa'iideysteen dowladda Israa'iil dhibaatada dalka Suuriya oo ay cadeyn uga dhigan odhahdooda markasta oo ay ciidanka Suuriya duqeeyaan kooxaha mucaaradka Israa'iil waxay u cabiraan sidii goobjoog ah. Adray waxa uu soo bandhigay 10 fiidiyoo oo go'aan kuwaas oo muujinaya in ciidanka Israa'iil ay caawinayaan dhaawaca ciidanka Suuriya cadawgeena wala shirkoobeen. waxay kaloo Israa'iil u soo bandhigtay dowladaha Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka iyo Bahrain in kooxaha Ikhwaan Muslimiin iyo kooxda Xamaas lagu daro liiska argagixisada. maadaama aan leenahay cadow shirkaana waxaan nahay saaxiibo iyo waliba in la xidho TV-ga Al Jazeera ama laga xayiro qaar kamid ah dowladaha Carabta. Israa'iil haddana mahayna waxaan nahay kuwa ku baaqay nabad. haddaba inkastoo qasal lagu hayo dagaal joogta iyo go'doon laga dinayo shacabka dalka Falastiin ayaa waxa Adray dhanka kale uu tilmaamayaa in ay Falastiiniyiintu dhibaato ku hayaan kuwa doonaya inay nabadgelyo kula noolaadaan halka waxa ku argagixisa kuwaas oo dhibaato ku haya xaramka barakaysan. haddaba buuxi meelaha bannaan. haddaba markastoo ay kulmaan mas'uuliyiinta Carbeed go'aanada soo saaraan kuwaasoo ay buux dhaafiyaan ka hadalkooda baraha bulshada Adray waxa uu istaagaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca ciidamada dowladda Israa'iil waxaan halkan hambalyo uga diraynaa dhammaan ummadda muslimiinta iyo waliba gaar ahaan ummadda Carabta ah waxaana si gaar ah ciidanka dowladda Israa'iil hambalyo uga dirayaan hambalyo si khaas ah. shaqaalaysiinta dhalinyarada Carbeed Afiqaay waxa uu bilaabay inuu ka faa'iideysto carada dhalinyarada Carbeed waxaana barihiisa ku shaqaalaysiiyay qaar kamid ah dhalinyarada si ay ugu shaqeeyaan sirdoonka. arrintaasina maaha mid sir ah qaar badan oo idin kamid ah ayaa leh sidaan u leeyahay tilmaamo gaar ah kuwaas oo u diiwaan gashan hay'adaha sirdoonka taasoo ah mid ugu wanaagsan gobolka iyo dhammaan heer caalami waana hay'adaha Israa'iil ee sirdoonka. tani waa mid tilmaamaysa arrintaas oo waliba ah mid fiin kartoon ah taasoo aad u eeg mid arrinta ay wadaan Adray iyo kooxdiisu. waxaan jecelnahay dhammaan carruurta adduunka waxaan ku beeraynaa waxyada meel kasta waxaan necebnahay cugdada waxaan beeraynaa jacaylka si aan u rumayno riyooyinkiina kusoo beer Jimis iyo Chelsea kusoo beer kooxda go'aad kusoo beer kooxdayada haddii kale waa noo dagaal. way ku guuleysteen Israa'iil hadafkoodii iyo qorshoodii ugu weynaa ee hameelista caqliga dadka taasoo ay yuhuudeynta Falastiin maantana waxa ay doonayaan inay u istaagaan wax walba quseeya arrimaha Carabta. hadafkaygu maaha xukuumadaha ku guultaraystay inay shacabkooda aaminaan laakiin waa shacabka naftooda taasoo u qaatay baraha bulshada ilo iyo waliba meel ay ka helaan xaqiiqooyin ay ka waayeen warbaahinta rasmiga ah. haddaba Israa'iil ku guuleysatay kasbashada Carbeed mise hadalka Adray wuu ka liitaa mid dhan roga xaqiiqada oo bedela koofiyadna u geliya taariikhda.